kulanti wanaagsan oo waxaan meel kastoo dunida ka joogtaan kula soo dhowaada barnaamijka ifiya 22 oo ah barnaamij aanu ku falanqayna siyaasadda Soomaalida iyo tan caalamka. Toddobaadkan waxaa marti noogu ah madaxweynaha Galmudug Axmed Qoorqoor oo aanu jecelnahay inaanu wax ka weydiino arrimaha shirka Soomaaliya iyo doorashooyinka la sugaya inay dhawaan dhacaan iyo waliba waxa ay doorashooyinkii loo dardargelin lahayd caqabooyinka hortaagan ayaan jeclahay inaan wax ka weydiiyo haddii ilaahay yiraahdo iyo su'aalo kale oo bulshada markaas ka dhex guuxaya. hase yeeshee marka u horreysa waxaan jeclahay inaan madaxweynaha soo dhoweeyo ogana mahadceliyo waqtigiisa qaaliga ah uu noo huray asagoo aad iyo aad u mashquulsan howlo fara badan ay ka dhacaan. mudane madaxweyne sharaf iyo karaamay noo tahay inaad waqtina siisana hor fadhidinna. waa mahadsan tahay cabdixafiid adiga iyo tiimkaaga. waxgaag mudane madaxweyne haddii aanu ku bilowno marka hore waxaan jeclahay inaan wax kaa weydiiyo in badan baad u ololeynaysay dib u heshiisiin iyo doorasho inay dalkan ka dhacaan. xaggee wax marayaan? maxaase kuu qabsoomay? maxaa caqabada ah oo ku hortaagan? bismi illahi raxmaan raxiim. mar labaad aan kuu mahad celinayaa cabdixafiid. runtii marka hore waxaan aada uga xumahay muddooyinkii lasoo dhaafay maalmihii lasoo dhaafay dhagaha dadkeenna inaysan ku soo dhicin fariin fiican oo ka socota ama ay ka maqleen arrimihii doorashooyinka. aad baan uga xumahay. waxaanan leeyahay intii la kari karo cudaar baan ka bixinaynaa. intaa kadib arrimihii geedi socodka doorashooyinka muddada aan soo wadnay guulo waaweynna waa laga soo gaaray oo sid la socoto heshiiskii 17 September wuxuu ka yimid shirarkii Dhuusamareeb 1, 2 iyo 3. sad og tahay heshiiska doorasho dadban waxay ka timid Dhuusamareeb 3 ayaa lagu gaaray iyada oo madaxweynaha iyo madaxda dowladda federaalka ay qabaan doorashadii xukuumadda ka timid baarlamaanka wax badan ka bedelay labada aqal ay meel mariyeen madaxweynuhuna saxiixay in doorashada lagu galo. waxaan ka dalbanay oo isu jiidjiidkii iyo arrimihii markaas dalka xaaladiisa iyo sida ay tahay anagoo fiirinayna aan ka dalbanay hadda doorashada la geli karo waddanku qaadi karo qabsoomi karta inaan u aragno in tahay doorasho dadban uu naga aqbalay. 17 September wax yar ayaa wax laga bedelay. ergadoo la yareeyey meeshii 300 ka ahayd 100 laga dhigay. tartanka magaca xisbiyo in lagu istaago ama lagu galo oo aan meesha ka saarnay iyo xisbiyadii aynan diyaar ahayn ama xisbiyadii aan weli sharciyadoodii iyo nidaamkoodii la dhamaystirin ayaan uga daynay ama iskaga dhaafna looga saaray meesha. qodobo yar noocaasa laga bedelay. waxaa la qaatay ama heshiiskaasi ka yimid ama doorasho dadbani ka timid waa Dhuusamareeb 3 waan ku guulaysanay ilaahay fadligiis. guul waxay ahayd dadka reer Galmudug ay runtii dhexda u xirteen waxba ayna la harin ay dhinac walba ka garab siiyeen isu taageen in doorashadu ku dhacdo heshiis. waxaad og tahay markaan qabanaynay Dhuusamareeb 1 oo ay isu imaanayeen dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ah 2 sano ku dhowaad laysma arkin kulamo ma qabsoomin. kulamo la isugu yimid waa jireen sida oo ka horreeyey oo aan iyadoon waxba la gaarin lagu soo kala kacay ama lagu soo kala tegay. runtii waxaa la gaaray guul weyn oo aan leeyahay fadligeeda iyo mudnaanteeda waxaa leh alla subxaana wa tacaala kadib dadka reer Galmudug. Soomaalina uga mahad celisay mudan yihiin. inta waa ku guulaysanay. heshiiskii hirgelintiisii waxaa ka dhashay tabashooyin arrimaha guddiyada doorashooyinka iyo gobolka Gedo oo kale.
iyada laftigeeda muddaan meel walba u tagnay safarra u galnay geed dheer iyo geed gaaban u fuulnay in tabashooyinka la tixgeliyo 3 qodob bay noqdeen 3 qodob shirkii ugu horeeyey oo ay tahay inaan ka yeelano waxaan iskaga nimid Dhuusamareeb 4 ma soo dhammaan laakiin doodii iyo isdultaagidii qodobadaas waxay ka dhacday Dhuusamareeb 4 ka dhacday iyadoo aanan isla dhammayn baa lagu soo kala tegay waa ka xumahay isaga wax u dhaceen waxay noqotay inaan guddi farsamo oo dhinacyada oo dhan ka socda la soo diro bay dhabay fariisteen safgarad baana laga soo gaaray iyagoo innagana nala tashanaya marka guuri la gaaray kuwaasay ahayn shirka hadda taasay daba socotay ujeeddada shirkan iyo waxa ugu weyn oo shirkan laga sugayay ama looga fadhiyay waxay ahayd tabashooyinkii bay dhawaan ka soo afgaranay in la dhameeyo oo la iswaafajiyo heshiiskii 17 September tabashada ka timid la xalliyo oo meel la isla dhigo doorashadiina la galo aad baan uga xumaa in loo gudbi waayey ajandihii waa gartay waa u imaanayaa 17 September iyo 16 February hoos baan ugu daadegi doonaa haddii intaasu ay dhacday waxaan rabaa inaan inta badan doorashooyinka iyo meesha haantu ay ka tilmilaadahay aanu diiradda saarno wixii la soo qabtay 3 shir reer Galmudug iyo dowladaaduba ay qabteen Dhuusamareeb lagu qabtay ama Samaroon lagu qabtay Soomaalidu markhaati bay ka ahayd hadday ahaan lahayd martisoor hadday ahaan lahayd soo dhoweyn hadday ahaan lahayd waqti iyo juhdi iyo dhaqaalo badan oo la geliyey in la isku soo dhowaado geedi socodka uu sii socdo waxaana isleeyahay dadka Soomaaliyeed dad abaal la gashto weeye oo ku mahadsantiin adigiyo reer Galmudug oo dhan haddii intaas aanu ka gudubno Galmudug waxay daris la tahay Puntland bay la tahay maalmahan waxaa ku jiray suuqa warar la isla hayo oo la leeyahay Puntland iyo Galmudug xiriirkoodu ma fiicna gaar ahaan adiga madaxweyne Qoorqoor iyo madaxweyne Siciid Cabdullaahi Deni wax badan baa idinka dhaxeeya daris baa tihiin waan ognahay gobolka Mudug dagaalo fara badan inay soo noqnoqdeen waayo hore waayihii dambe nabad baa lagu wada noolaa waa la wada cayshay ciidamada la samaystay maxaa ka jira xurgufin idinka dhaxayso waxba taa kama jiraan cabdi xafiid taasi sali raadna ma leh wax shakhsiyan aniga iyo Siciid nagama dhaxeeyaan aragtida dooda ra'yi uu leeyahay aragti buu leeyahay wax shakhsiya oo naga dhaxeeya haba yaraatee ma jirto bal waxaaba jirto sidaad sheegtay aniga iyo Deni laba maamul oo walaalo ah oo darisa oo wax badan ka dhaxeeyaan oo arrimo amni isaga xiran yihiin oo sida Soomaalida wax walba ka dhaxeeyaan oo dhan aan isaga sii duwanahay ayaan madax kana haddana muddadii anigu aan xafiiska joogay wada shaqayn buuxda oo aan dhibaato dhicin ayaa ka dhaxaysa waliba waxaan leenahay gacan saar iyo iskaashi iyo wada tashi gooniyahan leenahay labada maamul marka taasi waxba kama jiraan waa maqlaa wararkaas aragtida dooda miiska saaranna sida ay ninba la tahay ama labadeeda ninba ra'yiga uu qabo shakhsi ma ahan saameyn kuma leh maamulada iyo dowladda labada dowlad iyo anaga xiriirkeena toona wax xiriir lama laha waa gartay waxaan kaloo jeclahay inaan ku weydiiyo waxaa lagugu tirinayaa inaad ka tirsan tahay ama u dhowdahay dowladda dhexe iyo madaxtooyada aad xiriir dhow oo gaara la leedahay wax walba oo go'aan oo la gaaro adigu aad qayb ka tahayna aad rabtid sida madaxtooyadu wax u wado inay u dhacaan madaxdii hore ee dalka uu ka mid yahay madaxweyne xasan sheekh maxamuud madaxweyne sheekh shariif inaadan xiriir saas oo kale u dhow la lahayn maxaa arrimahaas ka jira maxaase ku sababeynaysa horta dee isu dhowaanshaha iyo wada shaqaynta ka wado madaxda hadda joogta xafiiskay joogaan si dastuuriya si sharciya ayaana wada shaqayn iyo wada socosho ay nooga dhaxaysaa waajibna ay u tahay
taas waa sida dee aada u dhigayso oo ama dad kale ay u dhigaan. cabdixafiid ma ahan howlaha aan qabanno iyo shaqooyinka aan hayno iyo dadaalada aan bixinaynana kuwa dhinac u janjeera ma ahayna kuwa wax isugu soo dhaweynay ahayn. madaxda hore aada sheegtayna maamuuskooday nagu leeyihiin iyo inay madaxdii hore yihiin, mana kala xirin, waa isku furannahay iyagoo inta ku habboon ama ku aadan aan kala xiriirno ama aan kala hadalno. marka xafiiska iyo madaxda joogtayna waxay nagu leedahay wada shaqayntii xafiiska iyo madaxda joogta qaranka, madaxdii horena waxay nagu leedahay maamuuskeeda iyo sharafka inaga mudan tahay. dadka siyaasadaada dhaliila ama falanqeeya waxay leeyihiin madaxweyne qoorqoor dowladdu lug weyn bay ku lahayd, waa se iyagu hadalka u dhigaane inuu madaxweyne noqdo, galmudug ka noqdo, sidaa awgeed ayuu madaxtooyada uga agdhow yahay oo doontiisu dhinac bay ka raran tahay. arrintaa maxaa uga jawaabaysaa mudane madaxweyne? galmudug umaba ahan hadafkeedana ka mid ma ahan khilaafka iyo isqabqabsiga iyo in arrimahaas hadafkeeda ka mid maaha, shaqadeedana ka mid maahan. dhinaca kale cagsigeeda waxa ay ku jirtaa ay qeyb ka qaadataa oo ah mar walba inay soomaalida isu soo dhaweyso, cidaanu isku soo jiijidi karno isku soo jiijiidno, khilaafka intaan yaray karna yarayno. dowladdu u dhow yahana horaan taas uga hadlayo ma aqaan sida loo rabi lahaa, ma waxaa soomaalida danteedu tahay oo la rabi lahaa dowladda inaan shuruucdii iyo dastuurkii iyo nidaamkii noo degsanaa lagula shaqayn ee laga hor yimaado oo la isku wada dheganaado oo la iswada haysto. saas miyaa loo fakerayaa oo dadka ay u arkaan masxab arkaan? taa anigu uma arkee soomaalida soo kabashadeeda iyo maantay sida ay tahay inaan dowladnimadeenna usoo kabno iyadoo la dhowrayo nidaamkii federaalka noo degsanaa iyo systemkii la qaatay ayay tahay inaan wada shaqayno, ku wada shaqayno, dhowrno waxaan shuruucda noo dhigan. marka aniga dhowaanshuhu wuxuu yahay waxaan u arkaa inuu yahay waajib oo qaran oo na saaran oo ay tahay wax kasta oo khilaaf keeni kara inaan ka fogaano, wax kasta oo dhowri kara wax shuruucda iyo nidaamka dadka u degsanna inaan ku shaqayno. aniga ma aqaan sida ay waa kugu celinaya mar kale, waan arkaa dhaliilo dowladda u dhow yihiin dad dhahaya, laakiin waxaan iskaga qiimeeyaa aragtida siyaasadda intay ama aragtida dalka ay ka leeyihiin ama intay wanaagga ay dadkaasi ka xisaabsanayaan ama ay ku xistamayaan inuu heerkaas joogo. xitaa mararka qaar dad murashaxiin oo dhaliilahaas qaba u arkaa, waxaan radaa murashaxa dhaliishaas qaba nooca dowladnimada uu madax ka noqon rabo mid la iswada haysta miya oo soo u fakerayo, mise waa mid uu doonayo in la wada shaqeeyo oo shuruucdii iyo dastuurkii dalkan la dhowro laguna wada shaqeeyo. marka taa aniga waa mar walbaan waa kusoo celinayaa, waxay ii tahay sharaf bay ii tahay inaanan ku sifoobin ka shaqayn horena aanan uga shaqayn haddana aan ka shaqayn doonin intii aan joogo xafiiska wax ku saabsan khilaaf iyo qalalaaso iyo soomaali dibdhaceeda. waa gartay mudane madaxweyne, kowdii bishii December 2020 iminka dhammaaday in ay doorasho ka qabsoonto oo xildhibaanadu doorasho ay u dareeraan bay ahayd maadaama muddadoodii ay dhammaatay. arrintaasu ma dhicinin in xogogaal aad tahay madaxweyne ah siyaasadda aad iyo aad ugu dhex jiro uguna dhuundaloola, maxay doorashooyinka baarlamaanka u qabsoomi waayeen baad leedahay? arrintaafid horena waa xusay wuu nasiib daro markii doorashadii hirgelinteedii lagu dhaqaaqay tabashooyin baa ka soo laabtay guddiyadii iyo tallaabtii koobaad oo la qaaday. annaga tabashooyinka in la xaliyo la turxaan bixiyo ayaan markiiba qaadanay oo anigu aan kulli ku shaqeeyeyba aniga shaksiyan. taas in la isaga yimaado waqti dheer bay qaadatay oo ayna ku habboonayn saxna ahayn inay qaadato, welina way taaganta. marka waxaa doorashadii dib u dhigay waa tabashooyinkii ka soo laabtay hirgelinta doorashada oo aan weli dhammaan, oo aynan ahayn inay soo gaarto waqtigan, oo aynan ahayn inay saa u jiitanto, oo aynan ahayn inay doorashadii saa u dahdo. waa gartay marka waxaad tiri
adiga laftigaa geed dheer iyo geed gaaban u fuulay waxyaalaha aad qabatay oo markaas kuu qabsoomay ama caqabaha oo kaa hor yimid arrintaas inay fusho waa maxay wadaad adoo qodobaynaya caqabadaha weli bay taagan yihiinba markii laga yimaado heshiiskii sidaan hore u sheegay tabashooyinkii ka soo laabtay hirgelinta doorashada ama fulintii doorashada weli bay taagan yihiin caqabaduhu marka waa kuwa maantaba ku gudban ama haddaba shirki u istaagay ugu dambeyn ka dhacay afisiyone marka runtii markaan taas caqabadihii shirki u istaagay kugu sawiro iyadoo aan soomaali waxba ka qarsoonayn ujeeddadii shirka iyo qodobadii shirka in looga hadla ay ahayd oo ay ugu weyneed ama ay ma ahayd saddexdii qodob oo afgaradka aan ka soo gaarnay guddigii aan u saarnay ka sameeyey inaan dhammayno ayaa saldhig u ahayd waa u gudbi weynay waa la gaari waayey waxaana arrintaa caqabad ku noqday in doodo kale oo aan doorashadii waxba hadda u sameyneyn dhiirogelin ah ama aan doorashadiiba la dhihi karno lama lahan xiriir si u shaksiyadaysan ama si dadku ay isugu muuqmuuqdaan salka ku haya ayaa ka runtii laga gudbi waayey doodii iyo qodobadii ujeeddadu ahaydna loo gaari waayey marka taasaa hadda taagan dibdhacana inta hadda soo dhacday sababtay haddana weli taagan oo shirkii aan meel lagu ogeyn saacadda aan kula hadlayo aan meel lagu ogeyn wax ballan hoyaal iyo shir socdaa midna aanu jirin ay doodii halkaa ku istaagtay waa gartay waxaad tiri waxaa jiray arrimo shaksiyeysan ama maaragtay doorashada iyo geedi socodka aan dardar gelinaynin baa hor istaagay arrimahaas yaa garwadeyn ka ahaa waxaanu ka hadlaynaa waa danta ummadda soomaaliyeed yaa garwadeen ka ahaa ujeeddada ay ka lahaayeen waa maxay ujeeddada uu ka leeyahay waa maxay duu shaksi keliya yahay bal u yara dhaadhacdo mahadsan cabdixafiid horta aniga runtii dadka eedaha iyo shaksiyaadka inay isdul taagaan aadka ugu ma ihi wax la moogyahanase ma jiraan doodaha dad saaxiibadayaha keenay waa isku daynay inaan iska qancino waa isku daynay inaan ajendaha dhowrno ama shirka iyo ujeedadiisa ku ekaano wax ka baxsanna aynaan arrimaha cakiran oo haddaba muddo soo jiitamay aynaan ku sii cuslayn aad baan isugu daynay nasiib daro lama gaarin mana aynaan kala qaadan arrintaas marka waa la fahamsan yahay soomaalina wax kama qarsoona inaan hadda qof isdul taago ama shaksiyaad isdul taagaan haddana wax weyn oo ku jira ma jiraan waxaa gartay mudane madaxweyne waxaad bilowgii horeba af ku dhufatay shirkii 17 September sanadkii iminka tegey iyo shirkii kale oo ku xigay 16 ee ka dhacay degmada Baydhabo shirarkaasu gaar ahaan kii September dhacay 17keedii ilaa ay haatanna beesha caalamku ay leedahay labadaas aan ogolnahay wax ka baxsanna ma ogolin ay leeyihiin idinku aad saxiixdeen dowladdu ay saxiixday muxuu ka fuli la'yahay shirkaasu waa maxay caqabadaha hortaagan muxuuna loo dardargelin la'yahay waxaad idinku saxiixdeen shalayto waa maasan tahay waa isla su-aashii usuul dhowdahay wixii aan shala saxiixnay soomaalina soo dhoweysay lagu wada qanacsanaa inaan maantay dee ay 5 bilood 6 bilood sii marayaan oo aan waxba la dhaqaajin runtii waa nasiib daro waxaad adig de go-aan la gaaray annaga heshiis siyaasadeed ku gaarnay heshiiskaas 17 September hay-adihii dastuuriga ahaa ama baarlamaankii labada aqal dalkuna waa ansixiyeen sharci bay noqoto doorashadaasi doorasho sharcigay noqoto in ay xilli hore dhaqaaqdo ahayd tabashooyinka iyo meelaha yararoo hadda wax ka soo laabteen ma astaahilin umana qalmin inay intaasoo waqtiga qaadaan soomaali maantay looga runtii lagu niyad jabiyo uma qalmin aad baan uga xumahay
wayna xanaan aaminsanahay dadkayagii ama saxiixayaasha ahaa ama golihii watashiga qaranka inay ku tahay runtii dhibic madow inay ku tahay ayaan aaminsanahay dadka looga turo ayay ahayd caqabadaha ku gudban maxay yihiin waaba kuu sheegay waa inta wixii ka horreeyey shirka afisyoone saddexda qodob ayaa si loo rogayey ama marba runtii aan meel ka eegeynay dhaliilaheeda iyo waaba loo sinsinaa karay ama si unba loo wada eedeysnaa laakiin tii afisyoone hadda waxay ahayd waxaan dhihi karaa caqabad aan la filayn ba ahayd in wax kale lagu soo daro anagoo tii hore la qaadi waayey waxaan qusayn ama aan xiriir la lahayn doorashada ama aan macno u sameyneyn in lagu soo daro aad baan uga xumaay runtii waana meeshay hadda wixii u dambeeyey ka dhaqaaqi waayeen welina caawana aynan jirin cid ama meel ku og ama shir ballansan ama shaqo socota waa gartay madaxweyne raallo waa kaa dhex galay haddii aanu arrinta shirka afisyooniba u guda galno wuxuu ahaa shir loo hanweynaa rag Soomaaliyeed baa shirayay masiirka malaayiin Soomaaliya ayaa miiska saarnaa waxaad shirtaan oo sheekaysaan oo albaabadoodiin xirnaadaanba wax la taaban karo oo ka soo baxay oo haatan ummadda loo sheegi karo oo lagu farxi karo oo dhihi karo tallaabadaasaa la qaaday wada hadal maahane ma hayno Soomaalidu waxay tiraahdaa meel haw u baahan hadal waxba kama taro waxaad kaloo tiri bar madow bay ku tahay mas-uuliyadda yaa qaadaya shirku inuu socon waayey uu shaqayn waayey dadku waxay aaminsan yihiin mas-uuliyaddan iyo isbaaradan waxaa dhigtay dowladda Soomaaliya ee dhexe qaar kale waxay aaminsan yihiin maya waxaa dhigtay maamul goboleedyada yaa mas-uuliyaddan iskale muxuu shirkaan u socon laayahay ummaddaana masiirkeeda looga shaqayn laayahay waa mahadsan tahay waxaan horta mas-uuliyadda waxaa qaadaya heshiiskii la gaaray oo aan ka soo sheekeynay ama aan ka soo hadalnay ee ay ahayd doorasho in lagu galo ciddii ishortaagtaa horta qaadaysa horaan kugu sheegay Soomaaliya waxba mooga aniga iyo inta u aragtida waxaa miiska noo saaran heshiiskii 17 September iyo tabashadii ka soo laabatay oo 16 February aan isafgarad uga gaarnay guddi aan u saarnay isagoo guddigu nala tashanaya anaga aan iska soo afgaranay magaalada Baydhabo intaas ayaa ujeedada shirku ahayd ma jiro wax banaanka ka ah iyo doodo kale oo sameynaya maslaxa keenaya ama ummadda Soomaaliyeed danteedu ku jirto oo loo baahnaa haba yaraatee ma jirto waxaana heshiis waa inuu ku xiro waa inuu ku celiyo waa in la dhowro heshiisku wuxuu noqonayaa dee wax warqada ku qoran haddii aanad dhowrin oo aanad ku dhaqmayn marka annaga heshiiskaasi ayay ahayd in la dhammaystirka inta tabashadii ka soo noqotay lagu dhammaystiro dalkuna doorashadii aado inaan ku idhaahdo waa saan iyo waa hebelna horaan kugu sheegay ma iga baahnid mana raba inaan sameeyo laakiin Soomaali waa taqaan laakiin adigu waa taqaanaa Soomaalida ilaa hadda Soomaalida miska fadhiyay waa qaan sidaas si la suuq qabtay sidaan suuq haynan baan u fadhiyay taas miyaa shay ku jira waxaan xog ku hayaa hadalladii ugu badnaa adigii madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani inaad isweydaarsaneyseen sidaan war ku hayo hase yeeshee waxaan weli ay dadka Soomaaliyeed ay la yihiin ciddii qaadi lahayd mas-uuliyaddii iyo shirkii xakadkii ku yimid adigu waxaad leedahay adoo dowladdii iyo 17 September iyo 14 February waa miiska noo saaran beesha caalamku saasay leedahay madaxda kale ilaa haatan kama hayno wax ka duwan waxaas oo ayagu ay la yimaadeen oo aan ahayn inay yiraahdeen rag odayaal ah oo ikhtiyaara ah lagu soo daro oo ha loo dadbadsado ajandaha shirkana ha lagu heshiiyo oo haddii aan aasaaskii lagu heshiin gurigu ma dhismi karo markuu madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani yiraahdo Axmed Madoobe yiraahdo
maxaa ku jaban arrintaas horta meel lagu qabtay dad shirka imaanaya ama kasoo xilliyada wakti ka mida imaanaya kasoo qaybgelaya ma ay jirto taas waa dood oo ama waa warar dacayado iyo dana kaloo siyaasadeed laga leeyahay sidaad xasuusato maalin ka hor ajendaha shirka intaanu shirka afisyoonama shir ka dhicin ayaa ajendaha shirka lasoo diray la faafiyey maha wax oo qarsoodiya maaha dad odayaalahoo dalka madax ka soo noqday ayaa ku jiray inay laga soo qeybgeliyo marka qodobadan hadda shirka laga sugayo laga wada hadlo xiritaanka inay kasoo qeyb galaan sidoo kale in meel kale ay kasoo qeyb galaan la geliyo ama ay iyagu dalbadaanna culays ka jiraa ma jiro mana ahan wax la isku hayay taas mana ishayna maba taas uma baahna haddii odayaashaas yidhahdaan in la dhegeystaan rabnaa wakti in la siiyo dadka lagu dhegeysto wax culaysi kama jiraan layskumana qaban meeshaan ajendaha shirka wuu caddaa soomaalina wuu caddaa beesha caalamka xataa sida ay noo garab siinayeen ama ay arrimahan doorashooyinka talooyinkooda iyo isu jiidjiidka ay qeyb uga ahaayeen saasay u caddeen 17 September iyo 16 February guddigii isafgaradka in la iswaafajiyo doorashadan lagu galo saas ahayd waxaa yimid marka qodobo kale iyo wax kale yimid marka haddaad tiraahdo haddii hebel saas yidhaahdo lama dhihi karo waa in wixii meesha loo yimid iyo ujeedadii shirka iyo shirku iyo heshiiskii lagu heshiiyo la dhowrayo waa in lagu ekaado ama lagu dhaqmo ama la dhowro haddaan aniga waxay igu soo dhacaba keeno ma soconayso de waxay noqonaysaa fashil marka dowlad burbur ka soo kabsanaysa la doonayo in la isku kakabo la isku soo dhaweeyo tanaasul iyo dulqaad iyo isku dhimrin kama harto haddii ay yidhaahdeen labada maamul goboleed madaxweyneyaashooda labadii madaxweyne hore iyo labada guddoomiyaha laga soo qeybgeliyo odayaal Soomaaliyeed siyaasadda qayb weyn ka ah laga soo qeybgeliyo ma waxaad leedahay arrintaasu caqabo kuma ahayn shirkii ka dhacay teendhada oo dowladdu way ogolayd hadalkaaga ma saasan ka fahmaya ma jirto caqabadna kuma ahayn dood jirtana maba ahayn waa dacayad suuqa laga soo sameeyey marka odayaasha haddii ay iyagu dalbadaan inay la dhegeysto oo waktiyada ka mid ah la dhegeysto ay dalbadaan waa dood kama jirto dood culaysna maaha mana jirtaba meel waa ajendaheena ku qoreedba hordhac ah oo iyadoo weliba aan shirka laga soo wada qeyb gelin ayay ku jirtay ajendihii lasoo diray haddii aad hadda dib aad u akrin kartaa waa hadda heli kartaa inay kasoo qeyb galaan xiritaanka shirka inay kasoo qeyb galaan waxaa kaloo jirtay in ay soo jeedsheen sida aan xogta ku hayno in beesha caalamka laftigeedu ay goobjoog ka noqoto arrinta oo loo dadbadsado beesha caalamku inay kasoo qeyb gasho adigu see u aragtaa maamulkan madaxtooyada iyo madaxweynuhuna see u arkaa horta beesha caalamka runtii waa u mahad celinaynaa soomaaliyana dee garab bay siiyaan oo garab taagnaayeen kasoo kabashadii burburkii dowladnimadii soomaaliya ku dhacay gacan bay siinayeen mar walbana gacan bay siiyaan dhinacyo kala duwan leh arrimaha doorashooyinka gaar ahaan sidii caadiga bay ahaan jirtay mar walba doorasho lasoo gaaro isku jiidjiidka iyo isku isfahamsiinta iyo talooyinka iyo qeyb bay ka ahayn ama gacan bay geysan jireen haddana intii bay wadaan waxaan leeyahay taa iyaga door ay ku runtii looga mahad celinay leeyihiin laakiin soomaaliday u taallaa inaan doorashadeenna iyo danaha soomaaliya inaan isla qaadano dadkayga iyo dalkayga u turno mas-uuliyad la muujiyo annagu aan go-aansano waxa aan ay tahay iyo danta ay tahay inaan qabsano iyo doorashadeenna waana iyada saasaana saxa ku taagan tahay oo gacantii iyo doorkii isu jiidjiidka beesha caalamka waana wadi jireen waana wadaan laakiin taasi kuma filla beesha caalamka waxa noo xalliso meelay ku taal iyo macno ay sameynayso ma jirto waa un
waxaan Soomaali u qalmin iyo isii dhibaateyn aad sameynayse waxba kugu qabsoomayaan adaadan dad waxba qabsan xitaa waxa lagu caawin karaa marka adigu aad caawinta diyaar u tahay oo aad qaadan kartid dadaali kartid aad rol qaadan kartid laakiin meel aan waxba ma qaban karee beesha caalamku mana dhicin ba dood hadda beesha caalamka ka soo qayb gasho iyo mararka qaar waa maqlaan laakiin beesha caalamku doorkeeda waa qaadatay waana qaadanaysaa waxaa maqantii Soomaalida iyo mas-uuliyaddii ku aadaneed waa gartay dadku waxay qaarkood qabaan fikir oranaya beesha caalamka inay shirka joogto waxay abuuraysaa kalsooni wax la isla ogyahay ee dhowrkiinan hadda madaxda teendhada ku jira keliya aan ahayn sidaa awgeed baa loogu baahan yahay si kale haddii loo eego hadday amnigii ay ayagu qayb weyn ka yihiin oo bixiyaan dhaqaalihii amniga lagu bixinayay siyaabo kalena dowladda ay u kabaan idinkoo maamul goboleedna gooni ay idinla shiraan dowladdana gooni ay ula shiraan in la isku yimaado wax la isla ogaado maxaa ku jaban waxaa la isla ogaanayo de waa inaan wax gaarnay waxaan gaarnaa la isla ogaan karaa ama dee nala ogaan karaa ama lasoo bandhigi karaa maxaan gaarnay waan isu nimi ajandihii shirka iyo shirka ujeeddadii u lahaa ayaan ka weecanay waxaan aadnay waxyaabo oo shaksiyadaysan ama de wax si gaar ah u dhigan ama dee si la isugu qalloocinayo ama si dad ay si gaara isugu muuqanayaan waana meesha aan ka gudbi weynay aan iska dayno wixii aan kaabayn ka mid ahayn heshiiskii aan gaarnay heshiiskii aan dhowrno aan ku ekaano qodobadii tabashadu ka soo laabatay miiskii noo saarayeen annagoo isqabqad ka soo gaarnay oo keliya ay u baahan tahay inaan isla qaadano aan intaas samayno oo yaanan wakti uga qaadin dadkeena iyo dalkeena waktigaana uga qaadin wax aan ahayn danti caamka ahayd intaasaan ka gudbi weynay 3 fadhi markaan yeelanay hal tallaabana hore loo qaadi waayey welibana dee mararka qaar waxyaabo iska kalsooni xumo fara badan oo aan runtii Soomaalidu dhaqan ba u lahayn markay isu timaado ay meesha ka muuqdeen ayay noqotay shirkii inuu iska istaagay waa gartay waxaa dhacday in wasaaradda warfaafintu ay hadashay oo tiri shirkii wuxuu ka socon waayey labadaas maamul goboleed waxaan daawaday waraysi laga qaaday madaxweyne Saciid Cabdilaahi Deni uu yiri anagu gogashii waa noo taalaa shir istaagay ma jirto marti baan gurigeennii baan joognaa hawshu inay sii socotaan rabnaa labadaa eray way iskhilaafayaan xaggee baa yaa runta sheegayo dadka Soomaalida runta u sheegay aniga inaan qofna u jawaabo ma rabo shir inuusan socon shirna hadda ballansanayn Soomaali waa ogta iyo adduunkaba marka wixii la og yahay oo aan dhibaatahoo dhacay oo aan dee la dabooli karin haddaad istiraahdo adigu si kale u qurxi ama dee waxaas lagu dhiso ama loola jeedo in wararka lagu kala quruxsado waxba ma samaynayso waxay tahay dhabtu inaan shir socon inaan shir ballansanayn inaanan shaqo noo socotaa jirin haba yaraatee shirkaasina uu istaagay markii 3 fadhi laga gudbi waayey oo la aadi waayey ujeeddadii shirka iyo qodobadii shirka u ballansanaa oo ay ahayd in shirkuba uu qabsoomo waa gartay mudane madaxweyne gabagabadii iyo gunaanadkii baanu ku jirnaa intaana ku weydiinin xalka waxaad u aragtid ma kuu muuqataa in wax kastaba ha dhacaan si kastaba ha loo kala fogaado doorashadu ay tahay shayga lagu dul dagaalamaya laakiin biyo hoostood la iska arkayoo dana gaar ah ay isdiidan yihiin doorashada aan la isku diidanayn aad iyo aad baan ugu arkaa
waana cilada kaliya oo hadda taagan waxa weeyaan waa isdiidanaan iyo iska horimaad iyo howlo gaar ah oo shaksiyadeysan oo la iska leeyahay. marka de Soomaali waa taqaanaa marka ay waxyaabaha iyagu ay si biyo hoostooda iska arkayaan saad u sheegtay ay wixii caamka ahaa mar sabab ka dhigtaan inay isku hayaan taana ma aha haba yaraatee sal yaraadku male waa maantay ay doorashadii Soomaaliya u taaganta oo caqabada ah waa arrimo shaksiyeysan. marka waxaa leedahay doorashada waa la isku dagaalamayaa waa noo dhaan dabalgaaleynaysaa. doorashadu waa gabaad geeda kale la isku jiraa. dhufayskaas ragga jiida hore ka ciyaaraya ayaa ka mid oday ayaan ahay waxa aan qabo miiskan ku sheegayaa inaan warbaahinta u mariyo ma rabo oon Soomaalidana runtii niyad jabiyo dad shakhsiyaadana aan isla googoosanno iyadoo ujeedada iyo wax walba sida yihiin la wada ogyahay. marka mar kale kaga cudurdaaranayaa arrintaas. waa gartay dhowr jeer baan isku dayay su-aashaas inaan siyaabo kale ku weydiiyo jawaabaha la siisay waxaa ka mid ahaa inaad tiri galmudug ma aha siyaasadeedu xasilooniya waxaan ka shaqaynaynaa wanaagga shakhsiyaadna ma taargad garaynayo. marka waxaan islahaa bal dhinacyo badan kaga keen waa intaasuu dhinac ka baxaa laakiin waxaa muuqata inaad kursigaaga haysatid welise waxba igu kaa haray. mudan madaxweyne dadka Soomaaliyeed waxay u baahan yihiin horumar, rabadaan, abaaro, biyo la'aan, colaad raagtay, al-shabaab oo galmudug maalintii ka timid aad ka hadlaysay baan ogahay deegaamo fara badan oo ay dhibaato ku hayaan oo Soomaaliyeed meel walba ku yaalaanba ayaa ku soo foodla. ma ku muuqataa in danaha shakhsiga xashiishka lagu rido oo la helo madax Soomaaliyeed oo u dhaqnata dadkan iyo dalkan anagoo og wadamada geesaha naga jira khayraadka dhulkeena uu leeyahay dadka danaynaya in la yiraahdo war taariikh baa noqonaysay damiir dhaqanadadow lahaada. waa maasantahay Cabdixafiid runtii waa meesha ugu weyn iyo mas-uuliyadda ugu weyn oo maanta na hortaalla waxay ahayd inaan maantay u dhimrino u tanasulno iskugu samarno wax walba oo la kala qabo oo gaar ah meel iska dhigno innagoo taxgelinayna dadkanaga hadda dhibaatada maanta uu ku sugan yahay waddankeena waqtiga la joogo abaar baa jirta colaad baa jirta argagixiso ay dadkii dhibaato meel walba u geysanayso naftooda iyo maalkoodaba ay ku banaysatay waxaa jiro cudur adduunka halakeeyay Soomaalida hadda farabaan ku haya dadku serviceka haystaan iyo meelaha kale adduunka lagaga horeeyo oo ogtahay in loo dhimanayo oxygen kaliya loo dadkii iyadoo runtii wax badan qofkii la caawin kari lahaa haddii uu serviceka haysan lahaa aad ogtahay sidaan ka nahay iyadoo duruufahaasi ay nagu wareegsan yihiin ama ay ku habsadeen dalkanaga ayaan intii yarayd horu socodka ama waqtiga kala guurka doorashada waxaan gelinaynaa maantay waxyaaba aan loo baahnayn oo qofba qofka uu ka dood badan yahay ka caqabad samayn badan yahay ka dhibaato sheeg badan yahay aanu waxba la harayn u turayn kaasi waa saas waa koox hebla waa dhinacaan waa waxaan waxba samaynayn mashquul ugu yahay dadka Soomaaliyeedna dad badan waxaa ku jira aan wacyi runtii wacyiga loo baahan aan lahayn oo mararka qaar iskaga mashquulsan ama lagu mashquuli karaba waxaan dantooda ahayn oo aan bisayl u lahayn danteenu maxay ku jirta annaga inay isweydiiyaan. marka runtii waa maalin ay ahayd inaan dhinac iska dhigno inaan dhaskibinka ku tuurno wax walba oo aan dantanada u adeegin oo maanta Soomaali duruufaha haya aan ka samata bixinayn. markaasaan de waxaan u kala xaydana sida loo aniga saan u hadlay sida xumaan u sheegay sidaan de balaayo u xujo u keenay sidaan usoo qodobo rakaato u sameeyey waxaasaa loo kala xaydanya aad iyo aad baan uga xumahay aad iyo aad baan uga xumahay aniga xanuun gaar igu sii haysaayo aniga iyo reer galmudugba
dadaal baa ka galay doorashadan iyo inay soomaali ay si habsami uga qabsanto taana runtii way noo sii gaar tahay soomaalina xanuunka guud aan la qabaa madaxweynaha galmudug baa tahay siyaasi baa tahay oday soomaaliyeed baa tahay maxaad isleedahay haatan in lagu dhaqaaqaa mudan oo raggii odayaashaha siyaasiyiinta aha dib la isugu soo celiyo teendhadii lagu soo noqdo la dardargeliyo may kuu muuqataa in arrintan meel looga soo wada jeesto oo kulligiin aad wuxuun isku waafaqdaan ummaddaana la jaheeyo maxaad ku talinaysaa waxaan ku talinayaa walaalihii aragtiyadoodu midba si u kala duwanaa oo shirkii ka dhaqaaqi waayey aragtiyadii kala duwanaa inaan ku soo laabanno tixgelinno aan dhowrno waxaan ku heshiinay haddii waxay lagu heshiiyey oo anagu weliba hadda inteeda yar dowladda federaalka iyo ka socda dowladaha xubnaha ka ah inagu keennay oo inagu aan dalbanay inaan soomaali kusii dhibno uma qalantee inta taa ku soo laabanno aan dalka doorashadii si nabada u jahayno taasaan aan runtii ku talinayaa oo taladu ay tahay kolleyna doorasha way dhacaysaa yaa taariikh xumo kala kulmi doona yaa dhibaatadaasi inkastoo dee soomaalida xusuus badan ba lahayn oo mararka qaar kuwa dhiba ayba ku amaalmariyaan dhibka ay ka amaalmariyaan soomaalidu waayahan dambe oo waxyaabaha dee dalkeena ragaadiyay ka mid tahay haddana waxaan leenahay mas-uuliyadda caqabadahaas iyo wixii ka dhasha dad bay ku timbaroobi doontaa ama qaadan doonee yaynan taa gaarine aan doorashada kusoo laabano doorasha way dhacaysaa insha allah heshiiskiina aan tixgelino aan ku dhaqanno aan gaarnay dad aan wax u qoran hadday tahay dastuurkii iyo shuruucii dalka iyo hadday tahay heshiiskii doorashada oo laftiisu la sharciyeeyey aan isla qaadanayn de waxaa la isweydiinayaa maxay isla qaadanayaan maxaa looga talageli karaa maxaa dadkaas laga sugi karaa waa la isweydiinaya adduunkuna siduu noo caawinayo siduu garab noo siinayo su-aal baa gelaysa haddaanay jirin meelna loogu imaanayo iyo wax aan dhowrayno oon ku dhaqmayno haddaynay jirin marka taas taladeedu waa middaas horena dhowr jeer waa u sheegay inaan u turno dadkeennaga iyo dalkeennaga duruufaha adag ku jira ayaan ku talinaya وهاجاك مدر مدحوينه waxaan jecelahay inaan intaa ku soo gabagabeeyo sharaf iyo karaamo ay noo ahayd inaanu hawada ku kulano waxaana jecelahay hadii la yiraahdo waraysiyo kale inaanu isugu nimaadno dhawaan waa kaaga mahadcelinayaa waqtigaaga qaaliga iyo inaad ummadda Soomaaliyeed su'aalo maskaxdooda ka dhex guuxay aad uga jawaabtay waxaan sidoo kale ugu mahadcelinayaa borotokoolka madaxtooyada galmudug oo barnaamijka nagala shaqeeyay maslax iyo tiimka farsamada maslax cali aad baan ugu mahadcelinayaa oo madaxweynaha garab taagnaa barnaamijkan isku soo xiray dhammaan reer galmudugna waa uga mahadcelinaynaa tiimkii nagala shaqeeyay reer galmudug madaxweynaha la shaqeynayay halkan waxaa igala shaqeeyay barnaamijkan idiin soo saaray wariye cabdifataax cali shirwac anigoo cabdixafiid idinla socodsiinayay isqabqabsiga siyaasadda iyo qalalaasaha jira wuxuu saameyn toos ku leeyahay arrintii deyn cafiska oo meel dheer looga yimid intaanu ifiye dib dambe ugu kulmi doono waa aniga oo cabdixafiid maxamuud jaamac oo kaga tegaya guul iyo gobonnimo